ولي برشلونة عادي وينتا حرفاني وحواي درسانيس كذا ما لها ودرسانيس وحلينا بريد كان قروح بنا لهاي dalxiisayaashu waxa waa inaba caadi ma meeshaan waxa waa dooman iyo maxay maraakiib jiri soo dalxiisa joogan meesha waa meesha dalxiiska laga raaco doomooyinka asxaabiisa muuqaal ku daawateen waxa waa dalxiisayaasha doon kaliya ma raacaan meeshaan iyo bridge kaliya lagu socdo alaabahaasna waa la raacan xarfaanta waxa waa wax laga sheekay karo maaha hadda meeshaan waxyaabaha mamnuucka waxa waa baaskiilka kale mamnuuc waa iyo scooterka kalluunka in la dabto mamnuuc ay ka tahay sababtoo ah kalluunka hadda ay idin tusaay ma aragteen horta kalluun waxaa jira asoo nool caadi meesha iska dhex yaal ma fahan waxa waaye wax badan waa joogay laakiin inta dalxiisaya ama diyaarad raacay meesha ugu fiicneed waa is dhihi karo waxa waaye ilaa hadda ma aragtay 2024 inta waaye meeshaan waxyaabaha hidiyaha dhaqanka waaye oo qaaraamiga waagi hore isticmaal jiray xarfaanay farantiyaal iyo waxa waaye saacado ilmaroodi adiga waxaan weligii arkin aan ku arkayaa inaba caadi ma runtii waxa waaye qofkii suurtagal u noqonaysa ama awoodo inuu imaado Barcelona waxa leeyahay waqtigaada ma ku qasaari doontaa hadaa magaaladan soo imaadid wax badan oo indhahaada ku dararaan oo ku raaxaystid ama jawi macaan ku qaadato ku arki doontaa dadka international waxa waa adduunka meel walba waa laga wada imaado ma fahanto waa la wada baashaalooyaa ana kuleelahay waxaan waxa dhibid waa qoraxda casirkii waa dukanay hadda wax yar ka hor haddana istiil qoraxda kulushahay waxa waaye taqfalaha xataa ka dhibidooyaa ma fahanto marka cajiib waa carfaan muuqaalka waxaan rajeynaa muuqaal oo fani inuu noqdo baxayta aad u qurux badan marka inaad dawaashto waa rabaa waxa waa xeebta meel kale leedahay oo lagu dawaashto waxaan rabnaa inaan ka gaarsiino waqtiga aad u yar laakiin waxaan isku dayaa inaan xeebta weyn aad tagno sidii loo dabaalanayo ugu dambeyn muuqaalkan waxa ku daawan doontaa markay qoraxda dhacaysa ma baan quruxda ay leedahay iyo jawiga waxaas oo dhan waan isoo duubaa insha Allah la socdo